dowladdan madaxweynaheedii ra-iisul wasaaradu shaqaa ka dhaxaysa isma qabtaan halkaas nudqaa ku jirta madaxweynayaashii hore waxay ahaayeen hawiye madaxweynahana waa daarood ra-iisul wasaareyaasha la cayraaya waxay ahaayeen daarood oo madaxweynayaasha u cayraayeen madaxweynahana wuxuu karti u yeeshay ra-iisul wasaaraha hawiye inuu ka aasho oo deysto aada ugu mahadsan yahay waa qodobka labeeya maxaabiistii da-daan ahayd oo dhallinyarada ahayd oo adduunka ku kala xirnayd waa keenta dowladdan ummadday maanta ka mid yihiin nin wax baranahaya iyo nin awal waxyaqiinoo shaqo helay iyo nin baaga muddahay u sinan yihiin waa qodobka labaad qodobka saddexaad dowladihii inaan dowlad noqono aan ogolayn oo hogaamiye kooxeedyada u yaari jiray oo haddana markii hogaamiye kooxeedii la dhameeyey maamul goboleedyada u yeeray in madaxweynuhu ka soo xiray oo nin walba aniga maanta halkan fadhiya oo duulimaad dibadda igala mid yahay oo uu soomaali uga hadlo taasina waa arrin qaali ah waa wixiina gubay waa wixiina dilay wixiina afka nala ka qabta weeye qodobka iyo afareeya waxaa weeye shaqaalaha soomaaliya oo ciidanku ugu wenya wasiirkuna ku xigo waxaa la dhihi jiray 6 bilood 7 bilood mushaar ma aysan arag garaam ma aysan arag aa la dhihi jiray hadda 28 nin walba mobilkiisa ugu soo dhacdaa shaqaalaha iyo ciidanka garaamna ma waayaan waa qarannimadu meesha ka toosta waaye qarannimo toostaa la yidhaahdaa halkaas qodobka shaneeya dayaaradihii hawada oo Nairobi lacagtooda lagu qaadi jiray Muqdisho lagu qaadaa waa qarannimo toostay iyaduna oo Ilaahayna siiyey qodobka lixaad nin wasiira oo xiran lacag u xaday oo iyaga hortood mana arag mana aanan maqal waa wax looga mahadnaqo waa wax loogu hambaliyeeyo waa waxaan aad loo heli karin in xatooyada xoolaha dad weynaha laga ilaaliyo wixii hadana lagu ciqaabo aad iyo aadaan intaas taasna u soo dhaweynayna qodobka iyo toddobaad oo xiga waxa weeye adduunka waxa ka jira bangiga